Taabid Cabdi Maxamed gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo warbaahinta kula hadlayay hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaa waxa uu sheegay inuu aqbalay inuu wareejiyo xilka maamulka gobolka Banaadir kadib markii sida uu tilmaamay uu ka fikiray in xilgaani jahwareer iyo amni xumo ay ka dhacdo magaalada Muqdisho in gobolka Banaadir galo jahwareer iyo nabadgelyo xumo waxaan ka doortay in aan xilka wareejiyo isla markaana u hambaliyeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee magacaaban si taasi u dhacdo dhibaato kalena aanay u iman gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed waxa uu ka hadlay sababaha dhaliyay khilaafka siyaasiga ee maalmahan ka taagnaa magaalada Muqdisho waxyaabihii dhaliyay khilaafka siyaasiga ahaa ee baryahan taagnaa waxa sababay labadan arrimood ee soo socota kow xasiloonida iyo nabadgelyada gobolka Banaadir waa mid si guud iyo si gaar ahba ugu baahan nabadoonnimo iyada oo la ilaalinayo sareynta sharciga labo shirkii wada tashiga nabadeynta iyo horumarinta gobolka Banaadir oo ahaa shir looga tashanayay laguna soo bandhigayay aragtida muqdishaawiga ee ku aadan adeega aasaasiga horumarinta dhaqaalaha amniga iyo arrimaha siyaasadda oo ay ugu horeyso matalaada dastuuriga ah ee 3 milyan ka maqan shacabka ka badan 3 milyan ee gobolka Banaadir degan waxa naga wada saaran waajib damiiri ah oo Soomaalinimo ugu dambeyntii gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed waxa uu dalbaday in laga wareejiyo ciidamada xilligan ay haysta aqalka dawladda hoose isla markaana waxa uu sheegay inuu magacaabi doono guddi ka shaqeeya xil wareejinta waa in si degdeg ah aqalka dawladda hoose ee xamar xayiraadda looga qaado haddaba waxaan magacaabi doonaa guddi xil wareejin oo ka shaqeyn doona arrinkaas mahadsanidin Cabdiraxmaan Waabri Som News Muqdisho.